waxaan ka codsan lahaa in Somaliland sii daayaan kulay muuqa garatay kani waa fanaanka caanka ah ee reer Somaliland ee Maxamed Saciid Bike fanaankan oo hadal uu ka jeediyay bandhig lagu qabanayay wadanka UK ayaa waxa uu ku sheegay inay isku xiran yihiin ictiraafka Somaliland iyo qaraxyada xamar ka dhaca isagoona sheegay in aanu cidiba ka hiibadeysaneen waa sidoo isaga hadalka u dhigay waxaan ka codsan lahaa in Somaliland sii daayaan iyaguna nabad bay helayaan waayo hadday u ogolaadaan ictiraafkooda qaraxa iyo dhibaataduna way ka baxaysaa waa walaalahood muqdisho haddii la iga maqlay waxaa loo lahaa Somaliland sii daayay haddaan la isxaqirayn waa dad jira madaxweyneyaal fara badan soo maray la isma qariyo anigu cidna kama hibayso Somaliland ha noolaato haddaba hadalkan uu yiri fanaanka ayay dadku siyaabo kala duwan ugu falceliyeen iyagoona soo dhigaya barta ay bulshadu ku xiriidho ee social media dadka hadalkiisan soo qaatay ayaa waxa ay iskugu jiraan dad caan ah iyo qaar kale waana kuwan qaar ka mid ah dadkaasi sidoo kale waxa isagana kamid ahaa dadkii ka falceliyay arinkan oo ku kacay fanaankan caanka ah Maxamed Saciid Bike wasiirkii hore howlaha guud iyo guryeynta Somaliland Cali Mareexaan isagoona ciwaanka ugu dhigay waxa fiican in qofka uu ku ekaado waxa ay dadka ku jecel yihiin qoraalkan ayuuna markii dambe yiri xilli aan filayo in ay ahayd dabayaaqadii 1986 ayaa waxa riwaayad magaalada Burco keenay koox fanaaniin caan ah oo uu ku jiray fanaanka caanka ah ee Maxamed Saleebaan Tubeec waxay sideen riwaayad la oran jiray Isasaaga Jacaylka Maxamed Saleebaan Tubeec iyo Nimco Yaasiin iyo fanaaniin caan ahaa oo kale Maxamed Saleebaan Tubeec isagu maadaama uu ahaa boqorkii codka waxa u gaar ahayd habeeno u gaar ah oo bulshada heesiisa kula caweynayay habeenka Tubeec iyo Burco waxa la iska soo buuxiyay garoonkii basketka safafka tigidhadu waxa la dhameeyay casarkii dheeraa waxa bandhiga ka soo xaadiray dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof saddexda taarabuun markii ay buuxsameen waxa la buuxiyay meel kasta oo banaanay dadkuna badankooda waxa ay ku daawanayeen sarajoog anigu waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u helay meel ay badida dhigaan dadweynihii iyo Tubeec ayaa loo kala baxay wuxuu soo galay masraxii isagoo suur ku labisan makhluuqii dhamaan ay meesha iskugu yimi waa ay sare istaageen sacab iyo mashaxarad ayay iskugu dareen dadku waxa maskaxdooda ku soo wada dhacay talo mugufaaca ayuu ku bilaabayaa mise dhool daailamood mise jaawageel mise laakiin Maxamed Saleebaan Tubeec wuxuu ku bilaabay khudbad u ekayd tii siyaasiyiinta wuxuu in badan ka sheekeeyay carruurnimadiisii iyo Burco sidii uu ugu soo barbaaray halkii uu malcaamada ka dhigan jiray iyo xasuus aad u fog waa uu ku dheeraaday faan badanna waa uu ku daray oo isaga ku saabsan dadkii sida geesiga u soo dhaweeyay marqura waxay bilaabeen foori qaylo iyo oris wuu fahmay wuxuuna yiri miyaan joojiyaa ha ayay marqura wada yiraahdeen intuu xaggii kooxdii muusika u yara dhaqaaqay ayuu hoos wax ugu sheegay sanqadii muusika ayay wada fahmeen dadkii meesha wada jooga oo dhan in ay tahay heesta soo socotaa hooyoy la'aanta sacab ayaa la kala joojin waayay ka isaguna waxa uu istaba dhigay 6 heesood oo aad iyo aad u caan ahaa hadalkiisa waxa uu ku soo ururiyay wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guryeynta Somaliland Cali Mareexaan xigmadu waxa weeye ku ekow waxa ay dadku kugu jecel yihiin hadalkan uu yiri fanaanka ayaa waxa uu imanaya kadib markii maalintii shalay uu qarax xoogan ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxan oo sababay khasaaro naf iyo maalba iskugu jira Maxamed Saciid Bike hadalkiisan ayaana mar qura qabsaday social media hadalkan ayaana noqonaya hadal deel qaaf ku ah dadka dhibaatada ka soo gaadhay qaraxii shalay ay ku dhinteen in ka badan 70 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof dadka qaar waxa ay leeyihiin ma wuxuu awoodi waayay fanaanka in uu u duceeyo dadka dhibaatada soo gaadhay halka qaar kalena ay leeyihiin fanaanku waa cunsuri